بدلك صدقتها في بلايا حجاب الله يدين كذبه وحا إلى النار عذاب إلهي عذاب إلهي الله يدين كباديو جنة سديد إلى الباب إلهي يدين كفر عافمات كينا الله حقاجيو أهلا دين سلام يا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت اسكم برنامج كان gabadii marayna hoosh soo gabagabeynay si waxaan rabnaa oo professional inaan u sameeyo thank you very much taas aad u faraxsan si fiiri si sharaf leh oo wanaagsan maadaama aan hadda sheekh la hadalnay insha Allah ninka waa bilaabana wixii soo dubo doona insha Allah hadii rabbeedno waxa u yeeri doonaa odayaasha magaalada gudoomiyaha magaalada sheekh Ahmed adeer kulligeen nimba mar ayuu maartay ninkan ku wareejinaya jeegaas hadii rabbeedno nimba mar buu imaanaya okay waxaan rabnaa ماشي نتاعنا ماشي صباح سوق حق سوق حق وسكر عليك برك حق يجي سكر حق يجي سكر محمد السوق عليه هذا انت شيخ انت انت لك اللي يصبح انت لك اللي يصبح شيخ انت لك اللي يصبح انت يا امري سعود كان الشيخ عبد الرشيد شيخنا الشيخ عبد الرحمن اسكدمي برا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد جزاكم الله خيرا dad badan oo halkan waxaa jooga dadkii reer Denver ahaa akhyaartii nuqbadii ah insha Allah taala waxaan la jooga walaalkeen oo ka shaqeeya gargaarka dadka Soomaalida ah wuxuu u socdaa wadankii khaasatan muqdishona sidaad ogtiin waxa ka dhisan guddigii abaaraha qaranka ee Soomaaliya oo dhan isku waafaqsanayd waxaan u dhiibaynaa haduu Ilaahay yiraahdo check koob iyo $50,000 lacagtaas oo ah lacagtii loo aruuriyay masaajidka Abu Hurayra Islamic Center maanta ayaan ka soo bixinay account-kii ay ku jirtay isaga ayaan u dhiibaynaa sidii hadda xafladdu ay u dhacaysayna Sheekh Nuur Baaruud baan la hadalay Sheekh Nuur Baaruud baa sugaya insha Allah taala oo kala wareegaya marka iga guddoon insha Allah taala ما شاء الله حرام ما شاء الله انت عارف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو رئيسو حان كما هدنقا جاكا كسكو وحان كما هدنقا سيدي ليسو دوية مقالة دي اللبات سيدي ليسو دوية مقالة دي اللبات ايان وحان كما هدنقا in hadda ka hor magaaladan dhowr jeer aan imaaday oo ay qayb ka ahaayeen barnaamijyada aan qaban jiray oo dadka masaakiinta ama dadka caafimaadka ku dhibaataysan inay magaaladan qayb ka ahayd maray la hadleen markii maalin dhow hal maalin ka hor laba maalmood ka hor markay la hadleen waxay dhaheen waxaan wadnaa lacagtan $50,000 waxaan ugu talagalnay dadka walaalaheen oo dhibaataysan waxaan dhahaa waa qaadaa sida hadda lagu dhiibaa Sheekh Baaruud lagu dhiibi doonaa insha Allah waxaan rabaa in qof kasto oo Soomaali ah inuu ogaado in 6 million people ay abaarayso qof kasto oo Soomaali waxaan rabaa inaan u sheego in 6 million people inay abaarayso haddaan laga gaarin dadkaas qof kasto oo Soomaali ama qof kasto oo magaalo kasto jooga Mareykanka ha ahaato ama Europe ha ahaato ama Canada ha ahaato ama Australia ha ahaato qof kastoo dibadda jooga haddaan laga gaarin dadkaas qof kale oo ay hurayaan male international community-na waxa waaye berri maana berri dambe waqtiga ku dhammaanayo
marka intaan marka la fiiriyo magaalo ahaan waa wax aad weyn waay compared to Minnesota compared to magaalooyinka waaweyn magaalo yar intaas ka soo aruurisay dheheen welina faanole fari kama qodno macnaha ii sheeg wax ka badan ay samayn doonaan insha Allah marka waxaan rabaa qof kastoo Soomaali inuu ogaado in lacagtan loo aruuriyo dadka abaaraha dhibaataysan aniguna maanta mas'uuliyaddeeda tahay inaan geeyo oo u geeyo dadka guddiga abaaraha inaan u geeyo ay mas'uuliyaddeeda tahay insha Allah u geyn doona sidii aan u ballan qaado u geyn doona waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga culimada soo qaban qaabisay dhalinyaradii qof kastoo sadaqaysta barnaamijkan inaan u mahad celiyo waxaan rabaa inaan ka codsado qof kastoo dayaaya ama halkaan arko ama telefishinkaan arko in waxa awoodid haba yaraatee $1 alla ka dhigo inaadan macnaha ay sheekaadan ka hakran barnaamijka labaad noogu xiga hadduu ilaahay rado anaga ahaanna waxay tahay insha Allah tacaala ramadaanka waqtigu ku aadan inaan geyno cuno nafaqaysan inaan geyno qorsheena kalena wuxuu yahay inaan qodno ceelal biyo ay ka helaan dadka si ay dadku biyo la'aan ugu dhicin dadku waxay u qaxayaan waa biyo la'aan focuska aan saarnay in wadan meel kastoo ka mid ah Soomaaliya biyo loo qodo jazakumullahu khayr waan ka mahadnaqayaa kulli macnaha sida lay soo dhaweeyay martiqaadka lay sameeyay halka lay u keenay hawshan mas'uuliyadan amaanada qofku ku dhiibay xataa intuu soo jeeday amaanada qofku ku dhiibay xataa waxa waaye waa wax weyn waaye ilaa wuxuu og yahay credibility-gaadu og yahay wuxuu og yahay qof waxa taa uu og yahay marka ilaahay ha igu nabadgeeyo insha Allah tacaala waxaan ka mahadnaqayaa odayaasha magaalada ka mahadnaqayaa sida lay soo dhaweeyaan ka mahadnaqayaa waxaan ku soo gabagabaynaa qof kasta oo walaalkii oo Soomaali mar labaad idayay ama halkan barnaamijkan arko walaalka indhaha ka xiran walaalka Soomaaliyeed indhaha ka xiran hooyada carruurteeda dhimanayso cunuga carruurtiisa maanta dhimanayo gaajada hayso oo haadku inuu cuno doonayo waxaan awoodnaa inaan baahidaas tirno إن شاء الله تعالى إلهنا وأنا لقرب قل دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله هذا ما سنتين جزاك الله هذا ما سنتين جزاك الله جزاك الله برنامج كان وسيس سعداء عن قعد سنة إن شر جريان برنامج كان وحلا قبتين قف ولا بالشارع وده نسيدات بدن وأركان وحن لا يهاي دمانتي مع السلامة يا هذا غير كانت جودة السارو كل جينا هذا غير هذا كم قانون يقول لك هذا أبانا قانون هذا نعمل كاش كده إن شاء الله Thank you. Thank you. الله كده أحمد كارش صاحب كيواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان في برنامج في عمري. وحين سوية. الله الله. وحين سوية. الشيخ نور بارود كبدقة. شو عليك كبدقة برنامج كأبارة. ما حين وعكت وجيني يا دولا هدمه. وحان برنامج كان قبل إنه حوي صوماليدا قربها جوكتان ضيعتهم. ستيت كبرادو. dadka jooga shan kun ilaa 6 kun oo qof weeyaan mar konton iyo kun haday aruuriyeen waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino dadka kale oo Soomaalida meel kasta ay joogaan inay lacagtaas iyo ka badan aruuriyaan lacagta konton iyo kuna ستمانك صوص على دولة محمد بلغاريا نقدي وحلال ودي بيا دولة ما راح عدنا أروم تدي ولو صعدت دولة نقول دونا نرجعين هاي هات ما حين وما سي برنامج كيس والسلام عليكم. شامل هذا شامل هذا أنا أبغى الإنسان قبل ما يشتغل. هو يا أو كانوا يشتغلون بس أنا ذكر تكنيك حنا لو إن العقد كأد بقوم علينا جالس راشد وحرب هالكنا ما هاد نقو إن قبل ولا شيء هذا إن هذا
waxaa dhacday inaan meel ijaaro rabnay ugu talagalnay barnaamijkan gabar walaashay oo halkan business ku leh oo business ka bilowda halkan ayaa tiri meesheeda kaalay lacag la'aan cabitaanka iyo raashinkii kulli anaa dhiibaayo aniga maanta waxaan ahay martiyaan ku magaalada laakiin waxaan ka helay sida lay soo dhaweeyay abaay halka nagu soo dhaweysay meesheeda ilaah waxaan ugu baryaa in businesskeeda u barakeeyo waxaan ugu baryaa in dad Soomaaliyeed oo saan oo kale ay bataan waan ugu mahadnaqaynaa walaasheen hodan ilaahay businesskaada ha badiyo aad iyo aad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la joognaa ilaahay oo runtii lagu wareejiyay lacagta waxaan kaloo ku boorinaynaa walaalaha dhammaan islaamada kala jooga inay ka qayb qaataan walaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qaado Soomaalida gabdhaha ma hadli karaan weydiin hay waxbay ku diyaariyeen nimanka ما شاء الله إنه يقبل صحيح كلنكي جوا بكناه يقبل هذه واكنا هاي صحيح يقبل وعكوي إن النظام كالصومالي معنيه كذا بدل ما يستجيو والله تاجروا معنيه لقد الصومال ما مديو هذا أنا وين مثلا هذه اللي هلا لكن كل إنه كأرك شيء كمان دولة ولا بيلا يا هذا الشيء aan odayaasha la galaan rabaa waxaan dhan ugu masoodo كنا ربان لبضي جرنين هذا كان هودي هاي محل لا هنا هنا ودي سلام يا عبد العزيز ما تنتهي هذا هو ما هذا كان ودي wala soo weydiina keenan daarto kula tagaya ما هذا كان ودي كان كلمة كان المرة اللي صورنا وجد هذا شوف هاي ما اللي قلتين ما اللي قلتين تكتب هذا ها ninkii dadka istaalada keeni jiray samaha meel waxa ma hay ninkii istaalada jooga ma hay Soomaaliyeed